Assalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibayaal. Muuqaalkeena waxaan ku baran doonaa preposition. Waa maxay preposition? Inta qayb uu kala baxo iyo sida loo isticmaalaa, mise loogu daraa, looguna isticmaalaa ama muhiimadda uu u leeyahay barashada luqadda Ingiriiska. Hore waxaan usoo dhiganay parts of speech, qaybtiisii koowaad, qaybtiisii labaad, qaybtiisii saddexaad, tii afaraad iyo tii shanaad. oo muuqaalka hadda ugu dambeeyay muuqaalkii ka sii horeeyay haddii aad YouTube ka baarto waxaad arkaysaa inaan ku baranay waa maxay adverb-ka. haddana waxaan baranaynaa waa maxay preposition, qaabkana loo isticmaalaa, maxaysana u tahay wax aad u muhiimsan. Okay, haddii aan gudagalo cashirkeena aanan ku daahinin furfurashada. Prepositionka muxuu yahay? Shows relation. wuxuu soo sheegayaa mise uu ku tusinayaa relation. Relation macnaheedu waxaa waaye xiriirada. Okay, xiriirada maxaa waaye? xiriirka ka dhaxeeya noun-ka iyo pronoun-ka adigoo markaasi ku daraya waxa la yiraahdo place, goob, time, waqti, direction, hagid ama meel adoo qof meel u toosinaya mise ku dhahaya meel hebel iyo meel hebel ama astaam ama calaamadeyn. So a small preposition is a small word placed before a noun. waa erey yar, small word adoo hoos ka xariiqaya word. A preposition is a small word placed kaasoo la dhigo mise la geliyo before a noun. Noun-ka kadib. Noun-ka ka hore. Okay? Noun-ka ka hore ayuu preposition-ka soo galaa ama pronoun-ka to show relation. asagoo sheegaya mise ku tusinaya relation ama xiriiro. Okay? Common prepositions. marka preposition-ka inta common-ka noo ah anaga u baahana inaan barano waa 3. waa place, goob, time, waqti, then direction or movement. Movement macnaha dhaqdhaqaaq, mise direction meel macnaha astaan meel lagu toosinayo qofka. tusaale haddaa ku leeyahay buugga wuxuu ku dhex jiraa kartoonka. so ku dhex jiraadaas means direction. waxaan kuu sheegayaa buugga inuu ku dhex jiro kartoonka. Okay? so haddii aan macneeyo mise aan idin tuso inta ay u kala baxaan mise waxyaabaha laga baran karo place. Preposition of place waxaa ka mid ah in, dhexda, gudaha. Okay? On, in the book is in, the book is on, the book is under, the book is above, the book is between, the book is behind, and the book is next to. So in waxaa waaye box dhexdiisa hadduu ku jiro waxaa dhahaysaa the book is in the table. The book is in the curtain. Book wuxuu ku dhex jiraa kartoonka. Okay, kaas waa ku dhex jirid oo ku dhex jiro shay kale ku dhex jiro waaye. So the book is on hadda dhahdo marka waxaa waaye kor saarid, macnaha wuu kor saaran yahay. ma ku dhex jiro meel laakiin meel buu kor saaran yahay. So waxaa dhihi karnaa the book is on the table. So the book is on the table. wuxuu kor saaran yahay miiska. The book is at the center of the table. buugga wuxuu yaalaa dhex bartamaha. so meel waay. so tusaale buugga wuxuu saaran yahay kartoonka ama wuxuu kor saaran yahay miiska qaybta dhexa. so miiska qaybta geeska qaybta so qayb marka loo kala saaro at the center, at the center, at the side. Okay? so marka intaas waa oo isticmaali kartaa. so taas waa mid. then under macnaha waxaa waaye shayga hoostiisa. tusaale wiil yaraa wuxuu kaga dhoontay sariirta hoosta. waxaa dhahaysaa the baby is under the bed. cunuga wuxuu ku hoos jiraa sariirta. Okay? under marka cagsigeeda maxaa waaye above, kor. so waxaa waaye qofka geed kor saaran wayse is above the roof, is above the tree. so guri korkiisu saaran yahay waxaa dhahaysaa the boy is above. so above the ama waxaad dhihi kartaa wiilka the result, his result is above the last one. so result natiijada sanadkii hore waxay ka fiican tahay mise ay ka sareysaa tan hadda. so waa above. Okay, between waxaa marka inta u dhaxaysa. tusaale oodan iyo oodan inta u dhaxaysa is between. Okay? so behind marka haddii behind marka aan macneyno behind waxaa waaye owdan gadaasheeda. behind the o. Okay? so behind waa owda gadaasheeda. Okay? next to waxaa waaye labadan o uu ku xigaa.
so tusaale next to the next to the sun, next to the book. So waxaad dhehaysaa markaas next to that. marka next to macnaha wuxuu ku xigaa ama wuxuu ag yaalaa. Okay, next to waxaad dhihi kartaa the book is next to the table, the seat is next to the house, or the chair is next to the house. So next to means waa ku xigaa ama waa ag yaalaa. Okay, time marka hadda soo gaarno. Okay, at tusaale waxaad dhehaysaa I will go to school at 8 or at 6 or at 5. macnaha waqtigaasaan tagayaa iskoolka, waxaan tagayaa ama iskoolku wuxuu bilaabanayaa xilligaas. So markaad 6 pm 7 pm 8 am aad sheegaysid waxaad u isticmaalaysaa markaad jumlooyinka dhisaysid at. on ma isticmaali kartid. Okay, markaad maalmaha sheegaysid marka isniin ha ahaato, talaada ha ahaato, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So markaas waxaad dhehaysaa on. I will travel on Monday, I will travel on Sunday, I will travel on Wednesday. On waxaad u isticmaalaysaa xilliga maalinta ama habeenka. So laakiin waa maalinta magaceed. So haddii jumlada ay ku jirto maalin magaceed sida Monday, Tuesday, Wednesday, on ayaad u isticmaalaysaa oo on ayaa ka horeynin. Okay, in marka in waxaa loo isticmaalaa bisha, sanadka, sidoo kale xilliga. Okay, xilli markaan ku leeyahay maxaa waaye? xilli waa subaxi, xilli waa duhur. So morningki waa xilli, night waa xilli, afternoon waa xilli, evening waa xilli. Okay, so markaad isticmaalaysa marka in markaad isticmaalaysa waa in aad u isticmaashaa ama bil ha ahaato ama sanad ha ahaado ama xilli ha ahaado, waa in aad in u isticmaashaa. Okay, number 3, preposition of direction or movement. Direction or movement. Direction maxaa dhahanay? aad tilmaam, movementna dhaqdhaqaaq. Okay, tusaale marka tu aad isticmaalaysid he goes to school, she goes to school. tuudaas maxaa marka wuxuu aadayaa ama uu u socdaa iskool. He is from the school, wuxuu ka yimaaday iskoolka. Or he's from Canada, he's from South Africa, he's from Kenya, he's from Somalia. So from means meel uu qof ka yimaado waa imaasho. Into, he is into learning. macnaha waxaa lagu yiri hebel muxuu qabtaa? He is into learning, wax barasho ayuu ku jiraa. So he is into learning, wuxuu ku dhex jiraa ama wuxuu wax buu baranayaa. So wax barasho ku dhex jiraa. So he is into. Out of, wuxuu ka baxsan yahay. tusaale waxaa isticmaali kartaa he is out of the country, wuxuu ka maqan yahay wadanka. He is out of the house, gurigu ka maqan yahay ama guriga banaankiisa ayuu jiraa. Or toward, he is toward to. Or the book, the car is toward to the center, gaariga wuxuu ku aaday macnaha ku aadan yahay xilligan. tusaale baabuura baxaya dhesa he is toward, like at this time the car is toward to. So toward macnaha wuxuu ku socdaa mise ku aadan yahay. Okay, she goes to school. tusaale fiican waa markaas. So she goes to school, she's from school, she's into school, she's out of the school, he is toward to school. So inta waa isticmaal kartaa. Sorry. Okay, haddii aan hore u socono marka, meesha waxaa marka aan kusoo gabagabeynaynaa types or commons of preposition. macnaha prepositionka inta uu kala baxo. muuqaalkan u dheeraad ma rabo, waa soo boobsinaya, waa soo koobaya. Okay, example marka tusaalooyin aan rabnaa inaan marka aan ku yar fahamno wixii aan soo baranay ama wixii aan soo faahfaahinay. Example-ka koowaad ee number 1 waxa waaye the cat yaanyurta is under, waxay ku hoos jirtaa the chair, miiska ama kursiga hoostiisa. So the cat is under the chair. I will meet you, waan kula kulmi doonaa at 5 o'clock. waxaan kulmi doonaa ani adiga 5 galabnimo ama 5 subaxnimo. Okay, 5 o'clock, 5 o'clock means laba noqonaysaa. am iyo pm labadaba laguma sheegin. So waa inaad markaa tirahdaa 5 am or 5 pm. haddii kale 5 o'clock means ama subax galabti ama subaxi 11 ama galabti 11. walk to the market. Okay, 11 markaa leeyahay, sorry aan ku noqdo 11. gobolada qaar 11 waxaa loo yaqaanaa 5 sac macnaha barqaha. laakiin anaga
waxaa waaye shanta kow iyo tobanka macnaheedu waxaa waaye kow iyo tobanka subaxnimo ama kow iyo tobanka galabnimo. So inaa ifahanteen aan rajeynaya. Walk to the market, aad suuqa, u lugee suuqa, to the market, walk to the market. Okay, intaas waxaa waaye tusaalaha ugu kooban ayaa idin soo diyaariyey. Okay, short exercise. Marka short exercise markaan cashar diyaariyo waa idin sheegay waxaan ku daraa exercise oo si aan u ogaado ardayga fahankiisa. Okay, su-aasha koowaad, fill buuxi the keys furayaasha are dash meeshaan waxaa banaan inaa wax gelisa laga rabaa the bag. Furayaasha waxay ku dhex jiraan boorsada. So ma inaa isticmaalaynaa mise ona isticmaalaynaa? Adiga ayaa ka jawaabaya. Okay, so the keys are dash the bag. Furayaasha waxay ku dhex jiraan boorsada dhexdeeda. So in or odd, labadaas midkaa waa. Okay, where oo ah time. So where oo ah time anagala raba marka. Okay, where time. We have, waxaan leenahay class, xiisad ama fasal dash meeshaan waxaa ina buuxisaa Monday, isniinta. So wixii galaya ayaan kaa rabaa adigoo isticmaalaya preposition of time. We have dash Monday. We have a class dash Monday. meeshaas badan maxaa galayo. Intaas inaan fahanteen rajayna. Muuqaalkan halkaas ayaan kusoo koobayaa. Inta muuqaalkiisa kulmi doono waxaa idin leeyahay haddaadan fahmin qaybta commentiga igu soo qor macaan ma fahmin dheh saa isula soconno oo aan u ogaado ardaydan meel aanan isla wada soconno hal meel aan wada taaganahay. waxaan rabaa inaan ku ogaado qaybta commentiga. haddii aad commenti inoo reebto waad ku mahadsan tahay. waxaan kaa codsanayaa inaad commentigaas marka aad inoogu reebto wixii tala ah haddaad wax ka fahmin, haddaad fahantayna igaga soo jawaab su-aalahaasi. inta muuqaalkiisa kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas nabadgelyo. Asalaamu calaykum.